madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa afka furtay oo waxa uu ka horyimi ictiraafka maamulka Somaliland uu sheegay inuu ka helay Israel. sidoo kale wuxuu ka yidhi heshiisyada maamulka Somaliland uu la galay maamulka kayaanka Yuhuudda. sidoo kalena waxa uu jawaab siiyey madaxweynaha maamulka Somaliland ee haatan Cabdiraxmaan Ciro oo ku tilmaamay beenlow, isagoo sidoo kalena xusay in khudbadiisii uu ka jeediyey madaxtooyada maamulkaasi maalintii ay sheegeen inay ictiraafka ka heleen Israel in la jarjaray, hadalkiisana la bedelay, nuxurkiisina la tirtiray. waxaa kale oo uu si la yaab leh uga hadlay bannaankan u keenay in hadal uu jeediyey madaxweyne hore waa Daahir Yaale Kaahin oo isna maalintaasi ka hadlay goobtii uu ka dhacay video call-kii lagu aqoonsaday maamulka Somaliland ee ka yimi Israel in gebi ahaanba khudbadii madaxweynahaasi la tirtiray isla markaasna meesha laga saaray oo aan bulshada loo soo gudbinin. qodobadaas iyo kuwo kale ayuu ka hadlay Muuse Biixi Cabdi, madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland. muuqaalkan ayaan iskula jeexjeexi doonaa oo ku falanqayn doonaa warkayay. sidoo kale muuqaalka laga ku sii qabo isla markaasna sii sheergaree si uu u gaadho bulsho badan oo Soomaaliyeed. mahadsanidii soo dhawaada saaxiibayaal. madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay been abuurad uu sheegay inuu ku sameeyey Cabdiraxmaan Ciro, kaasi oo ku aadan inuu kabaha ka soo cararay markii uu maqlay in Israel ay ictiraaftay maamulka Somaliland. waxa uu sheegay in meesha uu ka yimi ictiraafkaasi ay ku gadaaman tahay mugdi badan iyo sidoo kale amni darro. waxaa kale oo uu sheegay in khudbad uu ka jeediyey aqalka madaxtooyada maamulkaasi la jarjaray oo la macno tiray, isla markaasna laga leexiyey ujeeddadii hadalkiisa uu lahaa. waxaa kale oo uu ku dooday in gebi ahaanba meesha laga saaray khudbad uu isaguna jeediyey madaxweynihii hore ee maamulkaasi Daahir Yaale Kaahin oo isaguna si aysan doonayn in madaxtooyada maamulka Somaliland ee Cabdiraxmaan Ciro uga hadlay ictiraafka ay sheegeen inay ka heleen Israel. haddaba Muuse Biixi Cabdi oo beenaale ku tilmaamaya madaxweynaha haatan ee maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro, isla markaasna si waafiya uga hadlay sida uu u arko ictiraaf ay ka helaan maamulka Israel, ayaa waxa uu ku soo qoray barta uu ku leeyahay Facebookiisa sida tani. madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qoraalkiisa ku bilaabay madaxweyne Ciro ayaa shirkii golaha dhexe ee xisbigiisa weedha iga soo gudbiyey, bal aan iyar ka idhaahdo. wuxuu madasha ka sheegay in aan sheegay in 2 jeer aan ictiraaf ka soo helay 2 dowladood oo kala ah Guinea Conakry iyo Ethiopia. anigu marnaba ma odhan ictiraaf ayaan dowlad la soo galay. arrintaasi been cad ayaad sheegtay, odaygii qaranka lagu odhan maaye ee wuu ismoodsiiyey. odaygu waxa uu sheegay in aan kabaha haleelin markii la ii sheegay in la yidhi aqoonsi caalami ah ayaa la helay. waa runtii. haddaba markii aan tegey madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland hadalkii aan ka jeediyey waa kan: ictiraaf waynu u baahannahay, laakiin waxa uu ka yimid meel aan laga filayn. arrintu waxay u eg tahay maamaadii ahayd ragciil cadaab ka dooray. ictiraafku waa mudnaanta koowaad ee dalkeenna Jamhuuriyadda Somaliland. iyada oo ay sidaa tahay, haddana waxaan leeyahay arrinta dhinacyo badan ha laga eego una tala badso si aan dhexdeenna khilaaf uga imaan. maantana intii ayaan leeyahay. haddaba waxaa nasiib darro ah in madaxtooyadu ay jarjartay hadalkaygii oo la nuxurtiray. sidoo kale waxaa gebi ahaanba meesha laga saaray hadalkii uu madasha ka jeediyey madaxweyne Daahir Yaale Kaahin. haddaba gefka yaa galay ayuu isweydiiyey. Muuse Biixi Cabdi oo sii wata qoraalkiisa ayaa waxa uu intaasi ku daray: arrintan sida aad u maamushay aan dul istaago. safarkaagii rasmiga ahaa waxa aad sheegtay in aad Israa'iil hore u booqatay iyada oo laga ilaaliyey shacabka iyo warbaahintaba. waana kow madaxweyne Jamhuuriyadda Somaliland ah oo si qarsoodiya u safra marka dambana sheega in uu safarro qarsoodiya galay. safarkaagii u dambeeyey ee rasmiga ahaa waxa aad muddo joogtay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo aad ka dhooftay, halka wafdigaagii wasiiraduna ay iyaguna muddo ku sugnaayeen dalka Itoobiya kana dhoofeen. madaxweyne maxaa keenay qarsoodiga iyo qaybsanaanta? waa tahay daawadayaal, haddaba sidee ayaad u aragtaan hadalkan ka soo yeedhay madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasi oo u muuqda inuusan gebi ahaanba ku qanacsanayn ictiraaf ay ka helaan maamulka Yuhuudda, isla markaasna uu sheegay inay ka dhalan karto ama ay ka dhalatayba kala qaybsanaan baahsan oo bulshada dhexdeeda ah, taasi oo la xiriirta meesha uu ka yimi ictiraafkaasi
iyo sidoo kale cadowtooyada uu u soo jiibi karo maamulka Somaliland.